Ka waran daawade, maanta waxaad garaacday albaabka gurigeena, waana lagaa furay, waxaana lagaa hor keenay. Hooyada waa ay dhimatay. Allah ha u naxariisto. Waa maxay shayga ugu daran ee aad ka shalaynayso inaad u qaban weyday markii ay nooleed? Waan ogahay, waa su'aal adag oo qiiro leh. Waxyaabo badan ayaad ka shalaynaysaa inaad u qaban weyday. Marar badan ayaad maqli weyday hadalkeeda. Hooyo walba waxa ay jeceshahay inay ilmaheeda wax u qabato. Waxa ay jeceshahay inay aragto qofka ay soo korisay heerka uu gaaray. Sanado badan ayay kugu dadaashay, adigoo aadan lahayn awood. 20 sano ayay ku soo korisay. Maanta markii awood yeelatay, haddii aad ka jeesato ka waran, maxaad is leedahay waa ay dareemi kartaa. Ha dhihin hooyadeeda ima soo karsanin ama waxba ima siin jirin. Asma bintu Abubakar Sadiiq radiyallahu canhu, hooyadeeda Qadira bintu Abduluzah, waxay ahayd gaal, waxayna u keentay gabadheeda hadiyad. Laakiin Asma waa ay ka diiday, waxayna ku dhahday, adiga gaal ayaa tahay. Kadib Asma waxay u tagtay Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, waxayna ku dhahday hooyadeeda waa gaal, marka inaan la xiriiro qasab miyay igu tahay? Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku dhahay, haa, waa inaad la xiriirtaa hooyada, xitaa haddii ay gaal tahay, waayo xaq ayay kugu leedahay. Marka adiga maxaa kuu diiday inaad la xiriirto hooyada? Xasuuso, markaad yareed oo xanuunsatid oo hooyada kuu geyso xarumaha caafimaadka, dhakhtarku waxa uu ku weydiin jiray intee ku xanuunayso. Jawaabtaadu waxay ahayd adigoo aamusan ayaa eegi jirta hooyada, waayo waxaad ogtahay inay in badan garanayso xanuunkaaga oo dareemi karto. Maanta adiga, hooyada ma ka warhaysaa hamigeedii murugteeda? Su'aal, goormay kugu dambeysay inaad hooyada ku dhahdo, hooyo waan ku jeclahay, ama weligaa ma ku dhahday, hooyo waan ku jeclahay? Hooyo waa qofka keliya ee adduunka joogo oo aad ka maarmi karin Alle ka soko. Ma ogtahay in hooyada hoosteeda ay taalo jannada aad raadinayso? Maanta inta ay nooshahay, ka duceyso, ka farxi, baari u noqo, waayo beri haddii ay ka tagto adduunka, oohintaada waxba uma tarayso, adigana waxba kuuma tarayso. Shayga ugu yar ee maanta ka farxinayo ee adiga aad u qaban karto, dabcan haddii aadan waxba haysanin ama wax aadan awoodin, waxaad dhihi kartaa, hooyo mahadsanid. Hooyada xaq ayay kugu leedahay ee u mahadceli. Inta hooyo adduunka ka tagtay, Allah ha u naxariisto. Inta nool, cumri dheer iyo caafimaad Allah ha siiyo.